wafdi biloorama soo gaamiyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekhadan iyo geeka gelinkii hore hadeeri magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya walibana garoonka diyaaradaha aadanada International Airport ee magaalada Muqdisho si weyn ka dhawaana xildhibaano wasiiro ku tirsan maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta qiibasha shildhiban ee ka dhaqan magaalada Muqdisho xanaaso ha ku jeedan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya taskureed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekhadan meebalan waday xarunta fiiskan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo wafdigiisu hogaamiyay diyaaradii wadii xuquuqati magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya madaxweynaha iyo maalmooyinkiisu ka sugnay dalka Kenya meeba uu saxal kulmay mas'uuliyiinta ka sareyta dalkaasi Kenya iyo shirkadaha horumarineed oo xanaasoo la fadaa intii mashruucyo shildhiban ku fuliyaan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya cabdirsaaq laki TV dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya magaalada Muqdisho.